madaxweynuhu wuxuu ka soo horjeedaa in la isla xisaabtamo wuxuu ka soo horjeedaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqdii shacabkan Hirshabelle ka maqneed maxaa la yiraahdaa meel lagu sheego sababtaas waaye sababta uu ciidanka u soo diray in baarlamaanka hawshiisa oo dhan ay istaagto carqalad iyo amni darro iyo buuq meesha ka dhaco annagana taas raali kama lihin waxaan u sheegaynaa maxaa la yiraahdaa dawladda federaalka iyo beesha caalamkaba inuu madaxweynaha baarlamaanka u afduuban yahay ciidanku waxay igu amreen in aan meesha taaganahay aan ka laabto xildhibaane annagu amar madaxweynaha ku soconnaa waxaan ka codsanaynaa inaad naga laabato haddaad naga laabin wayto annaga waxa waa hadda xasaanad aan ilaalinayna ma laha taas marka waxaad u jeedaa inay tahay cagajugleyn ciidankaasna ciidan qarsoomahana waa ciidankii ilaaladii madaxweyne Waare oo la yaqaan official ah waxaan nimaanay hoolkii baarlamaanka annagoo 12 xildhibaane waxaan u nimaanay askar la wareegtay hoolkii runtii waana weydiinay waxa khaldan runtii askartan ka khaldan waxayna noo sheegeen in ay ku socdaan amar madaxweynaha Waare uu soo diray baarlamaanka shaqadiisana runtii ay socon doonaan maanta intaas kadib askartii ammaanka sugaysa hoolka iyo guriga baarlamaanka oo aan deganayn iyo ayaga waxa dhaxmaray khilaaf askarteena waxaan u soo jeedinay inaysan tilaabo qaadin la amar dambo hadda waxa naga dambeeyay waa hoolkii waxa gacanta ku hayo la wareegay ciidankii madaxtooyada ka amar qaadanayay waxaan ognahay shalay inaan gudbinay soo jeedin inuu madaxweynaha baarlamaanka imaado la weydiiyo runtii habraaca maaliyadda iyo qaabka ay ku shaqayso oo runtii aan dareemin inuu musuqmaasuq badan jiro madaxweynaha soo jeedintii markuu maqlay oo ay ahayd in maanta runtii gudoonkii iyo guddi joogto inaga la wareegaan soo jeedintii ayuu hoolkii la wareegay madaxweynaha haddii mataqaana xilka uu wadi waayey waxaan soo jeedinaynaa si yacni silmiya inuu wixii u wareejiyo waa dadnimo haddii uu yidhaahdo hawshii waa wadi waayey waa ku hungoobay xalay erayada ka soo baxayay statekan qayb ka mid ah oo mataqaana Hirshabelle la isku yiraahdo hiiraan inuu mataqaana uu yiri war aniga ma maamuli karo waxna kama yahay uu yiri haddoosan wax ka ahayn waxa wanaaga inuu yiraahdo war xilkii ma wadi kare ha layga qabto inuu yiraahdo oo mas'uuliyadda oo si cad oo bareer u sheego laakiin ma aha baarlamaankii lagu shiraayo oo guddi hoosyada shirayaan inuu intuu soo galo uu yiraahdo laga baxo oo amarka soo bixiyo waa ayaan darro waa ducfiga jiro waxay taas mataqaana daliil ka tahay mas'uuliyaddii aan ku wareejinay aan u dhiibnay inuu ku hungoobay waxaan baaq u jeedinaynaa dawladda federaalka xildhibaanada federaalka oo golaha shacabka ee deegaan doorashadooda ay tahay muxuu ahaay Hirshabelle iyo aqalka sare oo shaqadooda ay tahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada mas'uuliyadda loo doortay ay tahay xubnihii loo doortay Hirshabelle lagu doortay aqalka sare ma garanayna hadda waxay u aamusan yihiin waxa dhaca way u jeedaan marwalba baan ka hadlaynaa hadday rabaan inay xildhibaanadii Hirshabelle ay maantaba ay muuqato hoolkii ku shirayeen ciidan qabsaday birina xabad loo laayay hadday rabaan ha fadhiyaan xamar haddii kale dawladda federaalka baarlamaankan waa baarlamaankii asagoo shacbiga ka mid ah doortay oo codka uu maanta madaxweynaha ku haysiiyay beelu ma siin jufa ma siin cid kale ma siin beesha caalamku ma siin inuu maanta ayaga inta askar u soo diro ay meesha ku shaqeynay oo ka xiro yani waa arrin ay caddahay anigu xil madaxweyne ma rabo